السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope إن عافيماد قبتي أد فرحسن تهاي أي وحولي بقى أي أوكي كويهين. طبعا ما سيجارة وهلا يا سوما عادي وكل هلا يا محلقي هذا سيدا تايتل كأما أد فهمنا كبا كسو أركتي يعني إنه يهي مقال كأما قاب هربا أد وقياسي كرتيدو إن بدن هو إنا أركتي أوها هلاينو ما يا ساس سكدو أنا ربنا ما تينا وهذلنو عادي وشكي سنين كحوذا إذا نواوتا وحواي waxaan ka soo qaadaa walaalka iga yar ama walaasha iga yar inaad tahay kaba soo qaad adna walaasha ka weyn waad wada fariisaan oo caadi u sheekaysanaysaa fahmaysaa sababta saasuna waxa waaye bani aadamka yani uma sinna qof uu arkayo inuu ka yar yahay amaba ka yar iyo qof isaga ka weyn yani isku qaab uma dhageysto soo anna waxaa jeclahay mar walba yani dadka iga yar yar sida walaaladay oo kale inaan wax u iftiimo inaan wax u sheego in wax yar laga yaabo aan ani yani aan ku dhaamo iyaga aan kaga duwanahay inaan ku biiriyo aan ka wada hadalno marka taas ka soo qaad hal su'aal ku weydiina horta sida caadiga hadda aad dareemi karno maanta waa 28 December aan muuqaalkan duubayo oo sabtiya waxa laga yaabaa 29 ama 30 inuu soo gaaro waa already waa mar ay sanadka ay ka dhiman tahay 2 maalmood ama 1 maalmood dhamaadkiisa yani 2024 أنا كسنة أهان وما هضلينو فاهميسا كسنة أهان يعني دتك أي أركو ما أقاني صوبت أي أقوم مليان إن just وقتي أما ما قرش لدكتو مركو سنة صوب بلابنايو أما أقدمانايو صوبت مركا دطول بو يعني أي وهلان مركا يعني قف ولبا أما دتك إنتو بدني أي أقدهان سنة سوا بلوضي محد كفائدي سربتا معناها نولشو إنتان لأيك ما السنة بقى يعني قرش لدكتة قفك وقتي سودن أي تهاي ما إنه هرتا متقانا يقرش مركل الولاية هي سنة بعد ما هذا يعني هل سنة وحلاقيها ما دام هل سنة الويري هل كاس إنا أفير نيس الوقت وحوجا سكا وقتي جاونا يكونون نقطة سنة كسيد عادية والله بيتهم بلود والسدح بقول لحدا إيشان مالموت وسديت كنت تضوب بقول يلحدا ساعدوت وانا 525 kun iyo 600 saacadood horta marka hore saas u fahan yani hal sano markii lagu dhaho yaanay kula yaraan sanadka hadda dhamaaday hadii lagu weydiiyo lacag ka soo qaad marka sheekada caadi ah sheekaysanayna saa ku sheegayba hadii aan ku weydiiyo su'aalo dhowr ah oo jawaabaha aad bixinayso ay noqdaan kuwa aanay naftaada ku qanacsanayn ama ugu yaraanba ay noqoto su'aashaas jawaabteeda inaad u fakarto waa inaad isku laabataa waa in weyga hadda aad ka taagan tahay ama positionka hadda aad ka taagan tahay noloshaadii waa inaad beddeshaa waa in qaabka hadda aad ku fakerayso qaab ka duwan aad u fakarto ma waxaad yani ay aad aaminsan tahay ama aad ku qanacsan tahay saa ku sheegayna waaye yani ugama hadlayno sida in badan aan ubo had hore u soo maqashay inaan uga hadalno sanad cusub baa bilowday muxuu ahaa vision board oo ahaa mid maalmahan la wadwadayo gabar saaxiib aan ahay xitaa ii soo dirtay maalmahan lay ma aha horta sidiis kale uu jiray adduunka laakiin ma aqaani Soomaalida inuu hadda soo galay vision board baa samaynayaa sawir meel ku dhagsanayaa qorshe cusub aan samaysanayaa yani ma waxaad raali ka tahay ama caadi kula ah in sanad waliba aad qorshe degto oo bilaha u horeeyaan aad kaga harto qorshahaas qorshe inaad samayso aad guriga ku dhadhegsato haddana aanad fulin masaas ku qanacaysaa ma waxaad ku qanacaysaa in intaasoo waqti ah soo sheegnay oo sanadkan ka mid ahaa aadan waxba qabanin ma ku qanci kartaa yani tusaale horta marka la leeyahay inaad darbi wax ku dhajiso inaad saan samayso yani ma taas macnaheedu ma inaad ka soo horjeedo qof walba fikir uu leeyahay yani aragti gaar ah oo wax ka eegan uu leeyahay yani dadka isku aragti ma aha ani aslan ma aaminsani darbi sawir ku dhajina ama sabuurada wax ku dhagsana oo qolka dhigana way boorinaysa oo dhiirigelinaysa yani ani ahaan ma aaminsani mar horena waa u sheegay haday tahay wax adig ku riixayo wax adig kugu dhiirinayo wax aad rabtay inaad samaysid samayso meel walba ku dhigso xitaa musqusha ku dhigso
barandada ku dhaji, albaabka meesha ka bixis ku dhaji, qolka ku dhaji, sariirta dusheeda ku dhaji, meel walba ku dhaji haday ku riixayso waa. laakiin haddii aad u samaynayso waa la sameeyaa ama sanad cusub bilowday dhigso haddana aanad wadi doonin oo aad dhexda uga hari doonto yani hadda kuu sheegayaayo qorsho dejin kaliya kuma soconaayo wuxuu ku soconaa uu ku hirgalaa in la fuliyo yani waan dejiyay waa diyaariyay kaliya yani iskuma wadayso iyada isma qabanayso hawshu waxay u baahan tahay qof qabto sababta u leeyahay waxa waaye yani wax meel lagu dhajiyo wax mariixaan tusaale ahaan aniga waan aqaanaa soo maaha shakhsiyadeeda waxay rabto waa aqaanaa qalbigaygu wuu dareensan yahay waxa aan rabo maskaxdeedana way taqaanaa waxa aan u baahanahay yani niyadeyda mar walba ii sabri kartaa waxaas aan rabo mar walba ka dhex arki karaa haddii ay tahay yani way dhiirinayaan marka arko sawiradaas ama qoraaladaas yani haddii aad aaminsan tahay dabcan way ku dhiirinayaan laakiin ani ahaan aragtideeda markaa ka hadlo yani waaba ogahay already ani waxa aan rabo ma u baahno inaan bandhigo taas waxay kaliya noqonaysaa in qorshahaagii ama waxa aad damacsan tahay dadka kale ogaadaan bis because of adi hadda ma ogaanaysid already waa ogtahay oo gudahaagayba ka soo baxeen haddii ay tahay in way dhiirinaysa aad ay noqotana qofku waxa uu ku haminayo oo niyadiisa ku jiro saacad walba kusoo dhacaan ma u baahnaba sabir inuu arko waxaad adiga rabto miyaana ogeynaase yani waxaad adiga rabto yani uma baahno in lagu soo xasuusiyo uma baahno in lagugu buraarujiyo uma baahno hal mida ila macquul aan ahaan oo mararka qaar laga yaabo inaan sameeyo taasoo ah waxa aad qorsheynaysid inaad nood gareysatid inaad qortid yani inaad qoratid marka qoratid waxay ka caawinaysaa in wixii siday u kala mudnaayeen aad u aragto had iyo jeer oona kaa kala la yaacin oo kaa kala lumin dabcan waxyaabo waxaa jiro oo hadaf weyn aan ahayn laakiin aan jeclaan lahayn anaga inaan fulino oona ay noqonayso muddo gaaban kadib inaan lumino wixii ama oo focuska aanan saarin waxyaabahaas oo kale haddii aad qorato way kugu dhiirinaysaa wax walbo yani mar walbo inaad mataqaana aad soo xasuusato aad qabashadooda ay kuu fududaato markay noqoto markaas sanad dhalinta intooda badan waxaa sida caadiga la arkaa yani qof walibaahay in markii uu sanadka cusub uu bilaabanayo oo kale uu soo baraarugo uu dhaho sanadkan intaanad gaarinba marka sanadkan maxaan qabanayaa waxaad isweydiisaa sanadka hadda dhammaaday maxaad qabatay maxaad u qabatay noloshaadii maxaad aakhiradaadii u qabsatay maxaad kusoo kordhisay noloshaadii markii aad isweydiiso su-aal ama habeen ha noqoto ama bil dhammaatay ha noqoto aad isweydiiso ama naftaada ay si kama ay ku weydiiso maxaa kuu qabsoomay ma jawaabahaas dhaqsi inaad ku heshid mise waad u fakartaa mise jawaab ma helaysid taas isweydii kow yani su-aalahaas muhiim ma aha inaa ani iiga jawaabtid su-aalaha ku weydiina ina ani iiga jawaabtid muhiim ma aha waa in naftaada aad uga jawaabto ama su-aalahaas jawaabaha aad ka bixinayso waa inay ahaadaan kuwa aday ku qancinayo oo adoo faraxsan aad bixinaysid fahmaysaa qofka waxaa mudan yani sanadka tira ahaan u rabna anaga iyo waana fursad yani ay ahayd oo kusoo martay oo aad yani hadda kusii dhaaftay ama ha noqoto fursad aad baabi'isay oo banaan cidlaha ku dhamaysay ama ha noqoto fursad aad wax ka faa'iidaysatay kolley say ahaataba sanadku tagiyay hadda wuu dhammaaday waxaa mudan kan xigo inaad qorshaysid kow qorshuhu sanad kaliya kuma xirna qofku waa in saacadda soo maraysa uu ka faa'iidaysto maalinta soo maraysa uu ka faa'iidaysto bisha soo maraysa uu ka faa'iidaysto sanadka soo maray uu ka faa'iidaysto waa inuu isweydiiyo maalintiisu markay dhammaato saacadihii dhammaaday maxaad ka qabatay yani qorshooyinkaagii ama yoolalkii kugu yaalay ama wixii nolol maalmeed ah samayn jirtay maxaad ka qabsatay horta maalintaa dhammaatay maahano isbuuciyaa dhammaaday wiigaan maxaa kuu qabsoomay bishiyaa dhammaatay bishaan maxaad qabatay mastimaha qofka sanad kaliya inuu qorsho sameeyo inta badan waxaa la arkaa markuu sanad dhammaad yahay ama sanad bilow uu yahay in qorsho laga hadlo in qofku markaas uu ku dhaho waxaana qorsheynayaa sanadkan waxaana suurta gelinayaa saas ay tahayna waa wixii sanad walba uu soo qorsheyn jiray marka adigama waxaad ku qanacsan tahay in sanad waliba isla hal qorshe aad degto because of sanadkii hore waa dejisay ma aanad samayn waxaad ku qasban tahay haddana sanadkan inaad dib u dejiso waan isla qorshihii waan isla yoolkii waan isla wixii aad u baahneyd in sanadkii hore aad samayso ma waxaad ku qanacsan tahay in sanadka hadda bilowdayna sidii kan uu ku ahaa oo kale uu ku ahaado
mise inaad kasii horumarsanaato ma waxaad ku qanacsan tahay in mar waliba aad qorshe samayso deedna aad qabyo uga tagto ma waxaad ku qanacsan tahay in mar waliba koorso cusub intaa bilowdo aad dhexda uga horto ma waxaad ku qancaysaa in sanad oo dhan aan soo sheegnay 12 bilood 325 maalmood intaasoo kun oo saacadood 525,600 oo daqiiqadood aad ku qancaysaa inay malayacni kugu dhaafeen in kaliya aad toosaysay oo seexanaysay aad wax cunaysay oo cabaysay aad dhabar ula jiftay teleefonkaaga ma wax intaasoo ku qancaysaa ma waxaad ku qancaysaa in maalin dhan oo dhalato oo dhamaato aanad waxba ka qabsan ma waxaad ku qancaysaa in bil dhan intay dhalatay dhamaatay aanad waxba ku qabsan ma waxaad ku qancaysaa sanad dhan oo dhamaaday oo intaas ah soo sheegnay waqtigiisii in malayacni kugu dhaafay dabcan ismali inaad ku qanacsan tahay saasay tahayna way u eg tahay inaad ku qanacday laakiin kuma rajeynaa inaad ku qanacdo qofka muslimka markaan u hadalno si yani ka muslim ahaan qofka muslimka ma anfacayso qorshe la'aan iyo yool la'aan ma anfacayso dadka aan muslimiinta ahayn waxaa laga yaabaa maaha waa badankooda intooda badan qofka inuuna garan meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo hadda u fiirso ma yaqaan qofkan sabab uu u nool yahay ma yaqaan sabab adduunkan loo keenay ma yaqaan dhan uu u socdo ma yaqaan dhan uu ka socdo kadib waxay noqonaysaa inuu go'aan ku gaaro inuu waqtiga isdhaafsiyo wuxuu sameynaa waxbuu cabayaa maandooriyo isticmaalayaa maskaxdu isbeelinaya because of maskaxdiisii ama naftiisii yani ma fahamsano meelay u socoto that's why ugu fakeraa ama u go'aansanaa inuu waqtiga dilo khamrigu cabayaa wuu seexanayaa soo toosayaa waxbuu cunayaa wuu cabayaa wuu ku laabanayaa waxaa laga yaabaa mararka qaar xaaladaasi ugu jiro inuu isdilo sababtoo muslim maaha mana yaqaan waxa adduunka loo keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanku u karaameeyey laqad karramnaa bani aadam noolayaashaan kaloo dhan ilaahay wuu naga karaameeyey ka bani aadam ahaan ka muslim ahaan si gaara aa u karaamaysanna ilaahay aayad buu soo dejiyey noogu sheegayo yani waxa adduunkaana loo keenay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun yani su-aalihii aan ku weydiin rabay yani su-aalaha ii diyaarsanaay qaar baa ila adkaaday inaan ku weydiiyo xaqiiq ahaan yani dhab ahaan ma aqaani qofka muuqaalkan daawan doono badankiin waa laga yaabaa in su-aashaas aad si saxa ama si bareera aad uga jawaabi lahaydeen laakiin waxaa jiro qof su-aashaas weydiinteedaba ay dhaawac ku noqon karto marka su-aalaha qaar waaba ka booday waa iska dhaafay marka qofka muslimka ama qofka insaanka waa inuu ka duwan yahay noolayaasha kale tusaale ahaan xayawaanaadka ama ha noqdaan xoolaha caadiga la dhaqdo nimcooleyda loo yaqaan ama ha noqdaan kuwa dugaaga oo duurka ku nool iyagaba dee way cabaan wayna seexdaan way soo toosaan waxbay cunaan adiga waa inay ka duwanaataa marka iyagii haddii adig iyo bani aadama oo muslima oo insaana ilaahay ku karaameeyey ay noqoto inaad toosto aad seexato aad wax cunto aad iska jiifto aad teleefonkaaga isticmaashid ay noqoto in noloshaadii yani isku dhexyaac meeshii u dambeysay ay tagto oo salaaduhu markay tagaan aad tukato oo quraan laga yaabo week inaadan akhrinin laga yaabo sanad inaadan akhrinin dadka qaara laga yaabaa inay ku dhahaan yani ramadaanka ayaan quraan akhriyaabo inta kale waxay ku dhahayaan mar walba anuu qorsheynaa inaan akhriyo yani ay tahay inaan akhriyo haddana aan akhrinin laga yaabaa inuu ramadaanka kale uu igu gaaro qofka ramadaankiina waxaa laga yaabaa inuu dhowr jeer uu dhameeyo qur-aanka laakiin intii kale uuna akhrinin salaada markay uu tukanayaa salaadii kama tagayo qofkii laakiin dee waa salaadii laga digay oo ah salaad waqtigeedii tagay inuu iska tukado marka ma noloshaas nolol ah ku qanacsan tahay baa mise yani waad ka murugoonaysaayoo waqtiga aada luminaysid yani cariiri kugu hayaayo waxaad rabtaa inaad wax ka bedesho marba haddii aad ku fakaraysid horta inaad bedesho dabcan maalin un waad bedeli doontaa laakiin waa goorma waa markay si dhawa adi intay kaaga soo go'day ay noqoto qorshaha aad degsatay inaad sidiisii ku wado inaad fuliso yani wixii waa qorsheeyay keliyata kuma socdaan qorshuhu yoola leeyahay yani qorshan iima degsano dabcan waa riyo maalmeed
oo adoo soo jeeda inaad riyoonaysid oo kale. hadaf يعني loogama maarmo qorshena loogama maarmo fulinna loogama maarmo samir iyo dulqaad iyo joogtayn loogama maarmo. intaas hadday aad isla heli weydo waxay u badan tahay inaad dhexda ka soo laabanayso oo meeshii la rabay ama يعني calaamadii kuu taalay inaad soo taaban doonin ay u badan tahay. marka يعني qaabka dadka uga hadli jireen qorshaha bal isku dayno si ka duwan inaan uga hadalno maadaama ay يعني in badan aad aragtay يعني horta qorshuhu sida dadka badan ay u maleeyaan يعني ma aha wax nolosha يعني qaybaheeda dhexe ay bilaabatay. qorshaha weligiis soo jiray يعني qorshe xitaa ambiyada qisaskooda markaa fiiriso waxaad ka arkaysaa wax badan inay wax qorsheyn jireen. salafuna saalix culimadii hore ee tagtay inay wax يعني qorshuhu weligiis isagii noloshu way isla soo jireen. يعني noloshu qorshe la'aan يعني ma soconayso. noloshu qorshe la'aan ma soconayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat lighad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun. dadka allii naba rumeeyayo oo iimaanka laga helay nafi ha eegto wixii ay hormarsatay. wixii ay hormarsatay maxay noqon karaan? waxay noqon karaan wixii aakhiro hormarsatay, waxay noqon karaan wixii aad u qorshaysay in aad sanadaha soo socda hadduu ilaahay nafta kuu daayo aad ku noolaan kartid. يعني aayaddaas waxay kuu iftiiminaysaa qofka inay tahay inuu qorshe lahaado, يعني inuu qorshe la'aan uuna iska socon. markaa uga hadalno marka saa sheegnayba sida dadka intooda badan uga hadli jireen si ka duwan. horta kow ma isweydiisay sababta uu qorshuhu muhiim ugu yahay يعني qofka muslimka ah? aan ku iftiimiyo dhowr qodob oo kooban. kow inuu ku noolaado ujeedo, uu ogaado horta ujeedka abuuristiisa si uu u helo hagitaan iyo jiha cad. sababtu maxay tahay? marka hore ogsoonow oo xasuusnow dunidan ujeedo ayaa lagu keenay. ujeedo ayaa dunida lagu keenay. aayadan ayuu ilaahay soo dejiyeyna loogu sheegayo ujeedkana loo abuuray. suuratu daariyaat ilaahay wuxuu ku yiri wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jinni iyo insiba uma abuurin ilaa inay i caabudaan maahane. hadafka ugu weyn ee qofka muslimka horta waa inuu u noolaado ama qorshihiisu ay ahaato sidii Allah subxaanahu wa tacaala u raaligelin lahaa. taasoo ka dhigan inuu camal wanaagsan sameeyo, cibaado badan sameeyo, oo ku dadaalo yani uu u adkeeyo xiriirka isagii rabbigiisa ka dhexeeya. ahaado horta qof laga helay, qof og qorshaha dunida loo keenay, waxa uu nool yahay ee loo keenay. taas markii laga soo tago marka oo qofka muslimka u gaarka tahay qorshaha nololeed sida caadiga wuxuu qofku siiyaa jihada uu doonayo inuu u maro noloshiisa. waxay ka hortagtaa jahwareerka iyo kala dambeyn la'aanta, kala horumarin la'aanta, isku dhex yaacsanaanta nolosha. qofku wuxuu ogaanayaa halka uu u socdo iyo sida uu ku gaari karo. tan labaad xakamaynta waqtiga oo runtii ah qodob aad u muhiim ah. taas oo ah in qofkii yani noloshiisa uga faa'iideysto si waxtar leh, ka faa'iideysto waqtigiisa. taasna aan ku dabaqno nolosha qofka muslimka ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri 5 ka faa'iideyso intaana 5 ku iman ka hor. kow ka faa'iideyso dhalinyarnimadaada, shabaabnimadaada ka hor intaanay yani gabow ku iman. inta aanad noqonin qof tabardareeyay oo yani oo da'dii soo haleeshay. ka faa'iideyso dhalinyarnimadaada. tan labaad ka faa'iideyso caafimaadkaaga ka hor intaanad bukoon. intuun xanuun kuu iman ka hor caafimaadkaaga ka faa'iideyso. tan saddexaad qaninimadaada, maalqabkaaga ka faa'iideyso intaanay faqri kuu iman, intaanad sabool noqon, intaanad faqiirin. ka faa'iideyso hantidaada oo wax kala bax oo meel khayr ku bixi oo wax mataqaanaa markaad geeriyooto kadib ku joogayo. يعني siyaabo badan dhinac waliba uga faa'iideyso. tan afaraad ka faa'iideyso firaaqadaada ka hor intaanu mashquulku ku iman, intaanad mashquulin oo waqtiba aanad u weynin noloshan. يعني intaad firaaqada tahay, firaaqanimadaasi ka faa'iideyso oo meel hadhow jawaab aad u heli karto ku bixi. midda shanaad ee u dambaysa ka faa'iideyso noloshaada intaanay geeridu ku haleelin. يعني intaad nooshahay
waxaad qabsan karaysid qabso oo waqtigaaga maareeyo si ku habboon yacni uga faa'iidayso. nabiga saas kule calayhi salaatu wasalaam. hadaf iyo qorshe waxaa lagaga hortegi karaa in waqtiga lagu lumiyo waxyaabo aan faa'iido lahayn, waxyaabo malayacniya, waxyaabo aanay qofku wax usoo kordhinayn, wax uuna adduun iyo aakhiro midna uuna ku faa'iidaynaynin inuu qofka waqtigiisii ugu lumiyo ayaa looga hortagaa. waqtigu waa khayraad muhiima oonu soo noqon karin mar hadduu ku dhaafo. waa hantidaada ugu qaalisan, wax ugu muhiimsan oo aad haysatid oo mar hadduu tagana yacni aanad dib usoo celin karin. waxyaabo badan oo nolosha waxaa jiro markay ku dhaafaan ay ku gudbaan aad ceshan karto, aad soo celin karto, ama yacni aad si kale u xalin karto. laakiin waqtigaagii daqiiqad ka mid ah hadday ku dhaafto waa cimrigaagii qayb ka mid ah oo tegay aanad soo celin karin, si ku dhaaftay waa kii markaas joogo unbaad haddana ka faa'iidaysan kartaa. qorsheynta nolosha waxay ka caawisaa qofka in waqtigiisa si waxtar leh uu isticmaalo, isagoon mudnaanta siinayo howlaha muhiimka ah ee uu doonayo inuu qabto, yacni u kala horaysiiyo siday u kala mudan yihiin oona yacni isaga dhex yaacin. dad qaara laga yaabaa haddayba ahaynba dad yacni sida dadka qaar oo kale ay noloshoodu iska jiifka ay tahay, qofkii waxaa laga yaabaa inuu wax qabo isleeyahay wixii uu qabto, laakiin maadaama qorshe la-aan hayso darteed aanay wixiisu ka habboon una u qabanayn oo howlihii sidii yacni u kala mudnaayeen aanay isugu tixaynin oo wixii baday u kala soocnayn oo u kala baxsanayn. hadduu qorshe jiri lahaana taa beddelkeedaa la heli lahaa. ta saddexaad, horumarinta nafsadda oo ka mid ah waxyaabuhu qorshuhu muhiimka u yahay. markuu qofka qorshe yeesho wuxuu ka shaqaynayaa horumarinta nafsadiisa. waxaa ka mid ah sida inuu kobcisto aqoon, xirfad iyo akhlaaqba, taasoo sare u qaadaysa kalsoonida iyo awoodda uu u leeyahay inuu la kulmo caqabadaha nolosha. dee qofkana mar hadduu horumariyo noloshiisa uu wax kusoo kordhiyo waxay u horseedaysaa taasi inuu noqdo qof waxtar leh. qofka muslimkaana waxaa laga doonayaa inuu qof waxtar leh uu noqdo, qof waxtara inuu ahaado oo bulshada waxtara oo ku dadaala yacni dhinac waliba ee horumarka nolosha ah. tan afaraad, inuu iska ilaaliyo lumitaanka iyo jahwareerka. sidaan ognahay hadaf la-aanta iyo qorshe la-aanta waxay keeni kartaa jahwareer iyo nolol aan wax qiimo lahayn. sidaa soo sheegnay muuqaalka bilowgiisa oo kale, sida yacni qofka u noolaayo yacni aana muslimka ahayn oo noloshiisa isugu dhex yaacsanayd u raadinayay meel uu waqtiga ku lumiyo. qofka muslimka ahna wuxuu og yahay in noloshan adduun ay tahay safar, halka ay aakhirana tahay meesha kama dambaysta ah ee loo socdo. sidaas darteed qorsheynta nolosha waxay ku caawisaa inuu ku sugnaado yacni waddada saxda, ku sugnaado jihada saxda oona ka faa'iidaysto fursadaha noloshiisa soo mara. sida caadiga qorshe la-aantu waxay qofku ka dhigi kartaa mid fursado badan seegaya, fursado badan luminayo. qofka leh qorshe nololeed wuxuu ka faa'iidaystaa fursadaha soo mara noloshiisa. saacad kasta oo soo marta noloshiisa fursadeedii wuu ka faa'iidaystaa, maadaama uu u diyaarsan yahay. dee marka hore buu u diyaarsan yahay inuu ka faa'iidaysto waqtigiisa oo hore usoo qorshaystay. midda shanaad, isku dheelitirka nolosha. qorshuhu wuxuu qofku ka caawiyaa inuu dheelitir wanaagsan u sameeyo dhinacyada kala duwan ee nolosha, sida cibaadada, shaqada, waxbarashada, qoyska iyo caafimaadka intaba. yacni siday u kala mudan yihiin inuu u dheelitiro waxay qofku u suurtagelinaysaa inuu waqti siiyo dhammaan dhinacyada kala duwan ee muhiimka ee nolosha adduun iyo aakhiro labadaba. yacni qofka sidiisaba muslimka ah yacni labadan daarood inuu ka fekero labadaba, yacni mid saddexaad uma soo gelayso meesha. inta koowaad, mudnaanta koowaad uu siiyo aakhiradiisii iyo tan labaad adduunkiisii. qofka wixii uu inta ka shaqaysto inta kala tago ayuu aakhiro ku helayaa, adduunkana wuxuu ku shaqaysto ku noolaana. waa labadaas un. aayaddii qur-aan maxay ahayd? wabtaqi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk. labadaa daarood yacni sina nasiib uguma lahan qof aanu u qorshaysnayn siduu u maarayn lahay oona tirada ugu jirin yacni wuxuu aakhiro la tegi lahaay oo rabbigii la hortegi lahaay uuna inta kaga shaqaysan. yacni adduunkana nolol wanaagsan kuma leh oo raad kuma leh. yacni qof aanan waxba qabanin oo qorshe la-aan iska ahayd noloshiisa oo iska cunayay, iska cabaayay, iska socday, nasiib uma leh labadaas dhinacba. yacni wax natiija ah oo raada uga soo baxay male. maxaad filanaysaa imtixaan aana diyaarinin maalintii lagu soo horreeyo warqadiisa? waa imtixaanka caadiga ee dee adduunkan aan joogno ah.
كورن هدي لغو ويديو وقتي غاقي انتي دقيقة نولش انت نولي اي كسو مرين لغو ويديو انت تكو بحيسي وقتي غاقي اتسو نولي انت كو بحيسي غارهان دلغيرني مداد انت كسو بحيسي اي لغو ويدين دونا انتانا تاس لغارين با adduunkaab lagugu weydiin doonaaba yacni naftaadayaba ku weydiin doonta intaan qofka la gaarin maxaad usoo qoratay naftaada maxaad ugu jawaabaysaa markaas haddii aanad inta noloshii aad qorshaysay aanad fulinin wixii aad qorshaysay aanad ka faa'iidaysan waqtigii kusoo maray hadaf iyo qorshe wanaagsan waxay ka dhigan yihiin inuu qofka ku hanuunsan yahay ka shaqaynta camal wanaagsan taasoona ka filanayo dabcan inuu ajar badan uu ka helo adduun iyo aakhiraba iyo dabcan ku fooganaanta wax isaga faa'iido u leh oona ajar uu ka heli karo adduun iyo aakhiraba tan lixaad oo qorshuhu muhiimka u yahay gaarista yoolka haddii uu qofku leeyahay yoolal nololeed goals qorshuhu waa dariiqa uu u maro si uu u gaaro yoolalkiisaas si uu u gaaro wuxuu ku qasban yahay inuu lahaado qorshuhu wuxuu qofku siiyaa hab waxtar leh uu ku ogaado horumarka uu samaynayo iyo halka uu marayo yacni talaabooyinkiisa inuu la socdo step by step wuxuu samaynayo inuu la socdo maadaama uu yacni uu ku socdo qorshihii isagu u diyaarsaday qodobkeena u dambeeya oo qorshuhu muhiimka u yahay waa kor u qaadista kalsoonida nafta markuu qofku ku shaqeeyo qorshe uu diyaariyey wuxuu dareemayaa kalsooni iyo qanacsanaan aad u wanaagsan aad u baaxad weyn sababtoo ah wuxuu arkaa natiijooyin muuqda oo ka dhashay dadaalkiisa wuxuu arkayaa wixii isagu qorsheeyey yacni siday u suurtagaleen oo ay u noqotay yacni wax la taaban karo oo resultigeedii uu horyaalo markuu qasban yahay inuu kalsooni badan dareemo iyo inuu yacni uu ka raali noqdo naftiisa uu u hambaliyeeyo qofka waxyaabaha oo cajiibka waxay tahay markii aad ku socoto wax aad qorshaysatay aad aragto inay kuu fulaan dhab ahaan yacni waad isla cajabaysaa isla cajabidina taa maaha isla cajabid waxaa jirto midda yacni aana wanaagsanayn oo banaanayn oo ah qofku inuu yacni waxyaabaha uu camalka aakhiro uu u dhiganayo uu samaynayo inay wax buuran la noqdaan oo ay la weynaadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri yacni jannada ilaahay ma goyso camalka aan samayno markaasay weydiiyeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim xitaa adiga ay dhaheen yaa rasuulallah annagoo og aan maqalnay cibaadada nabiga say ahayd yacni levelka ay joogtay ayuu yiri xitaa aniga yacni camalkaygi ma gooyo jannada ilaahay jannada halkii boos qofku ku leeyahay waa adduunkan koonkan oo dhan 10 laabkii oo xiraad u malaysaa ilaahay ha noogu deeqo oo naxariistiisa ha noogu geeyo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofna camalkiisa ma gooyo jannada ilaahay inuu ilaahay naxariistiisa uu ku geeyo maahane marka laakiin waxyaabaha yaryar oo yacni waxyaabaha nolosha ah markii aad u qorshayso naftii aad ku wadood ku booriso ay kuu suurtagalaan yacni way mudan tahay inaad faraxdo aad u mahadceliso naftaan laakiin ka baxsan camaladii aakhiro wax aakhira haddii aad samayso xoogaa kula odaygaa jooga shaydaana adoo kula buuran inuu ku dhaha waa dadaashay meel fiican aad gaarsiisay camal fiican aad samaysatay markaasuu meeshii gaabis uu kaa soo galaa isagana waa faa'iidadiis intaas taas si walba ay even ay noqoto in habeenkii oo dhan aad salaad la taagnaato way kula weynaan yar kula noqoto oo ku sii hami inaad ka sii kordhisid mataqaanaa meeshaas aad joogtid marka laakiin waxyaabaha yaryarka aad qabatay qorshooyinka yaryar ee yoolka dhowe adduunka markii aad qorshayso ayna kuu fulaan way mudan tahay naftaada inaad u mahadceliso aad yacni aad isku aragto qof mataqaana mas-uula fahmaysaa marka qofku yacni muslimka qofka noole insaanka yacni uma maarmo yacni kama maarmo inuu qorshe lahaado ku talagal maanta meesha joogtid inaadan beri joogin sanadkan saad ahayd inaad sanadka dambe aanad ahaan bishan say kugu dhamaatay in bisha dambe aanad ahaan waa inaad ka duwanaataa aad ka saraysaa aqoon ahaan hab fikirkaagii hab noloshaadii hab cibaadadaadii waa inay ka sara martaa sanadkan imtixaanka natiijada jaamacadda ama iskuulka wixii aad ka keentay waa inaad joogin sanadka dambe aad ka sara marto cibaadadaysa sanadkan aad ahayd waa inay ka kormarto sanadka xiga quraan akhriskaagii si sanadkan uu ahaa waa inuu ka sara maraa sanadka dambe yacni nolol isku mid ah oo asaas hal wareeg oo circle waa inaad ku jirin ma uu sii jirtaba yacni qofkii waxba intuu qorshe la'aan iska noolaa ama wax maalin sanad walba uu sameeyo uu meel ku dhajiyo oo haddana inaad wax meel ku dhajiso uma baahna marka la ku celinayaay hadday ku riixaysa laakiin samayso
waxa aad rabtid adiga waa ogtahay muhiim ah inaad dadku u bandhigtid naftaadi way ogtahay be way ay ugu baahan tahay inaad sawir ku tusto ma sawiran karto miyaa nidaad ma sawiran karto wayba tahay soo maha way ku riixdaa samayso laakiin middaa kuula talinaa waxay tahay haddii niyadaada aanad ka wadi karin oo aad u baahan tahay meel aad mar waliba aad u laabato nood garayso ama buug ku qoro deedna mid walbo kuu qabsoonta tig saaro intaasaa kugula talin lahaa ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabaynaynaa aayaddii bilowgaba muuqaalkaa soo akhrinay oo ilaahi subxaana watacaala uu ku leeyahay min suurati alxashr yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsu maa qadamat liqad wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun aayaddaas way macno weyn tahay yacni waxyaabo badan qodobo badan aad u badanaa laga soo qaadan karaa laakiin 3 bis aan kasoo qaadanayna 3 wata koowaad waxay ku aftiiminaysaa aayadda 1 taqwada taqwo ku nolol alla ka cabsi ku dhisan taqwada waa ilaalinta qofka naftiisa si uu uga fogaado dunuubta yani qofku mar hadduu alla ka cabsi uu ku jiro way adag tahay inuu mataqaana mar waliba uu dunuubta uu dhex dabaashto ay la noqoto wax iska caadiya normal ah mar waliba يعني وحبراروايو تقوى إسوا كجرتي الله كعبسي وكجري إلهي بقى حسنايا يعني ما أبضنا ويجرتا قفك بني آدم كهاد يجرب ودن باباي لكن سو نقد كيسا بدن سترتيب يعني آيات وحا ugu horeeyo oo ku iftiiminayso waa taqwada midda labaad xisaabinta nafta qof waliba waa inuu isweydiiyo waxa uu diyaariyay maalinta aakhiro Allah wuxuu ina xasuusinayaa had iyo jeer in noloshan adduun ee gaaban ay tahay safar aakhirana qof waliba uu la kulmi doono waxa uu soo shaqaystay marka xisaabi naftaada waqti waliba Soomaalidu maxay dhahdaa is xisaabi inta lagu xisaabin tan saddexaad oo aan aayadan ka soo qaadanayno waxay tahay ogow oo xasuusno horta in Allah subhanahu wa ta'ala uu og yahay wax waliba taas waa og tahay I know but inaad xasuusnaatid had iyo jeer يعني أي كاد على عصناته أنا يغفل كاجلين إن الله سبحانه وتعالى وحول بقوا وأجيه هاي عمل كوناكسن إيو حمانته منك ما قرصونا تسحسسنو بوحبك ما قرصونا الله اتيسا وأنا إن قفوا لبقوا أجادا إن حساب أذك يسويسو وإن أجانا إن حساب بدن أو أذك نسويسو مرة قفك مرة هدوب وكبر يعني وكبر ركسية هاي in la xisaabin doono maalin yani ma ku dhiiranayo in had iyo jeer waqtigiisii uu maalay yani uu ku lumiyo maadaama uu og yahay noloshiisii inta waqti soo martay in laga xisaabin doono marka ugu dambeyn qofka had iyo jeer yani qorshuhu kama maarmo noloshu yani qorshe la'aan dhadhan ma yeelanayso qorshuhuna wuxuu ku fiican yahay markii say loo qorsheeyo ama qofkan uu ugu talagalo uu u fuliyo marka kale intaas ugu talagalay inaan la wadaago وكما سنتين داوشة مقال كان عداوتين حن اسكولا دردارمينا يعني إن كفا إذا إسنو وقتيا ديني لغيرنما ديني فراقا ديني إن ما لا يعني أنا نكون بحنين مستنا ما إن سنة كلية قرشة لدكتو قف نورشي سواء إن مروا لبا أي قرشة سنة هاي وهذا قف قرشه كسعبه قرشه وهجتان كقفك مرك قفك السنة وما مارمو إنه قرشة لهذا قفك مسلم كان قرشيه سي وين وإنه هذا سيدو ربي ورالجلين لها سبحانه وتعالى أنا آخر ميل ونكسر وأهلي لها وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته